kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa taageero loogu muujinayay Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka waxaana kulanka goobjoog ahaa dhalinyaro siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo lagu amaanay waxqabadkii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ee muddadii uu xafiiska joogay waa kuwan xubnihii madasha ka hadlay qaarkood oo dareenkooda cabiraya waxaan aad iyo aad ugu raaligelinaynaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre go'aankii geesinimada lahaa oo u turay dalka anagana waxaan rajaynaynaa inaan ku dayano hoggaankiisa wanaagsan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxaan aad ugu mahad celinaynaa sidii wanaagsaneed oo dalkan u soo hogaamiyay shaqadii wanaagsaneed oo soo qabtay waxaan kale oo ognahay halkii uu dalkan u joogay waagii uu xilkan qabanayay Xasan Cali Kheyre waxyaabo lagu xusuusan doono waxa ka mid ah olihii Isilxabaan oo wakiilka ka ah xafiiskiisa Mr. Cabdi Baawud waxaa lagu xusuusan doonaa tayeenta tiirinta iyo bixinta mushaaraadka ciidamada qaranka oo aan hore u dhicin waxaa lagu xusuusan doonaa dhismaha stadium Muqdisho wadadii 30 kiiloomitir ee afgooye Muqdisho isku xirto Xasan Cali Kheyre waxa uu ahaa nin ummadda Soomaaliyeed oo dhan u shaqeeyay wayna tabi doontaa wayna sugaysaa waana aaminsanahay inuu ku soo laaban doono asigoo ka maqaamsan rabay meeshii uu ka tagay dalkan doorasho 4 sano mar waa inuu aado waayo extension iyo muddo kororsi dalkaani ma qaadi karo waa dal 30 sano burbursan dhibaato ka jirto dadkaani waa Afrikaan ma aqbalayaan wax aan legitimate ahayn oo sharci ahayn anagu Scandinavian ma joogno Norway ma joogno dalba bursan waay wax la soo dhisay marka madaxweynaha waxaan ka rabnaa ma ka hadlayna hadda qof baxay iyo qof joogo laakiin waxa ka hadlaynaa maxaa legitimate ah waxa sharciga waxa waaye 4 sano dalka inay doorasho ka dhacdo Xasan Cali Kheyre wuxuu ahaa ninka xukuumadda ugu dheer wadankan qabtay wax qabadkiisana cid kasta oo rabtaa inay wax meel marisaa ama ay wax ka sheegtaa ma gaari karto Xasan waan ognahay wadankan waxa uu soo qabatay ra'iisul wasaare waa kaaga mahad celinaynaa annaga waa yeelka wadankan jooga hadaan nahay dhalinyarada hadalkoodii waad maqasheen annagana dadka maanta uu ka weyn asiga generationka ka weyn oo wadankan wax ka soo xukumi jiraan ka mid nahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed Xasan Cali Kheyre qabiil ama taageero ugu hambalyeynayaan wuxuu ugu hambalyeynayaan go'aankiisa geesinimada uu qaatay Soomaaliya wadanku wuxuu ku jiraa crisis sida saaxiibkan Xasan Cali Kheyre uu tanasulay madaxda maanta dhibaatada haysato waa ka warqabnaa uma baani xataa in 4 bilood aan sugnay hadda hanoo tanasulaan saas xafladaan oo kale ugu qabanay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed horumarka Soomaaliya gacantiina ku jirtaa sababtoo majority idinka go'aanka gaari kara haddii xataa wadankan yiraahdo one man one vote dadka codka ugu badan bixinaya waa idinka mar walba waxaa la liiga baahan yahay wadada fiican iyo fikirka fiican oo Soomaaliya maanta inaad idinka aad taageertaan Abbas Hussein Muuse Home Cable TV Muqdisho